sidoo lugeel waa uu xiran yahay sida warar aan ku kalsoonahay oo aan ka helayo hay-adda nabad sugidda ama sirdoonka qaranka ee NISA. sidoo lugeel waxaa lagu haystaa eedo la xiriira inuu ahaa xubin ka tirsan ururka al-shabaab. ninkan sidoo lugeel magaciisa lagu sheegay oo aan ilaa hadda aniguba aqoonin magaciisa saxda ah, waxaa la wariyay inuu yahay nin sirdoonka Soomaaliya siday sheegeen eedahaas lagu haysto isla markaasna la raadinayay. saraakiil kala duwan oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen walow ay diideen maadaama baaris ay socoto in warka ah in sidoo lugeel uu xiran yahay ay xaqiiqo tahay oo uu ku jiro xarunta dambi baarista ee hay'adda sirdoonka qaranka, halkaas oo su'aalo lagu weydiinayo. su'aalaha la weydiinayana ay yihiin wax la xiriira eedda loo haysto oo ah in sidoo ninkan la yiraahdo uu yahay nin shabaab ah. waxaa la sheegay marka dadkii aan la hadlay ay xaqiijiyeen qaarkood in ninkan tuhunka uu soo galay ay bilaabatay kadib markii fanaankii Abshir Gaarane la qabtay oo nabad sugidda video ay baahisay ay ku sheegaysay in Abshir Gaarane uu yahay nin ka tirsan ururka al-shabaab, sida ogeeyna Abshir Gaarane uu shaqeynayay maamulka gobolka Banaadir. haddaba sidoo wuxuu ka mid ahaa sida la sheegay oo saraakiishu ay inoo xaqiijiyeen shakhsiyaad ka mid ah ururka. si official ah hay'adda nabad sugidda weli war ugama aysan soo saarin, laakiin xaqiijinta oo ah ilaha aan leeyahay oo warinimadeeda waxay ii xaqiijiyeen in ninkaasi uu xiran yahay eedda loo haystana ay tahay eeddaas. waxaan ku baranay markaa daba sidoo lugeel marka laga soo tago xogta hay'adda sirdoonku ay heli karto ee la xiriira eedda hadda ay sheegtay, waxaa anaga sidoo lugeel ku baranay inuu ahaa nin YouTuber ah oo la shaqeynayay xarun YouTuber. xaruntaas YouTube-kan ay ninkaasi shaqaaleysiisay, sababta u shaqaaleysiisada ay ahayd kaliya ayaga oo aanan ku ogeyn inuu ninkan yahay dhinac kale oo eed kuma lahan team durdur oo uu ka tirsanaa, laakiin waxay rabeen in ninkan oo mihnad leh ama xirfad leh fursad la siiso u shaqeeyo. haddaba sidoo lugeel eedda ku dhacday ee hadda hay'adda sirdoonku ugu xiran yahay ayaa midaasi ah. way jirtay warar iskhilaafsan oo sheegaya sababta uu uga tagay goobta inay tahayba looga buriyo inay tahay eedan soo gashay ama tuhunkan soo galay. warar kale tan sida hore idinkugu sheegnay xaqiijinay, laakiin warka hadda soo dhacay oo saaxiibada xog wareysi janaalka magaca uu ka turjumayo ah xog wareysi, nooc kasta oo xog ayuu janaalku u furan yahay, arrimo bulsho, siyaasad, wax kasta waxay xaqiijinayaan in sidoo lugeel uu arintaasi u xiran yahay, hay'adda sirdoonka uu xiran yahay, baaritaan uu ku socdo, raadka soo galayna lagu haystana uu yahay inuu yahay nin ka tirsan shabaab. marka ilaha xog ogaalka aan magac dhaweynin sababtoo ah waxaa jira wax la ilaaliyo sourciga qofka ku siiyay ina ilaalisid xaqiiqan wax lama huraan waa waajib waa. sourciga warkana siiyay hay'adda sirdoonka aan ka helin saraakiisha ah waxay xaqiijinayaan in ninkan xiran muddo la raadinayo, laakiin uu ahaa nin qarsan oo aan wejiga lagu raadinayay aanan lahayn oo weji kale joogay oo magaalada ku shaqeynaya. hase ahaatee tan iyo kadib markii la qabtay fanaanka Abshir Gaarane oo la tuhunsan yahay, anaga ma ku cadeyn karno wuxuu yahay labada ragba, laakiin la tuhunsan yahay hay'adda sirdoonku ay aaminsan tahay inuu ahaa nin ka tirsan video laga soo duuban oo ku qirtay. waxa uu xaqiijiyay in ninkan uu ahaa xubin kale oo ka tirsan oo la shaqeynaysa. sidaas ayuu haddaba ninkan la hadlay sargaalka aan noo xaqiijiyay oo uu noo sheegay in raadku ninka sidaas ku soo galay, sidaasna ay hay'adda sirdoonku ku qabatay ninka gacantana ugu dhigtay. hadda marka sidoo lugeel waxaa dareemi kartaa inaysan tiimka durdur weli ka hadlay arrintan. culayska arrinta sii xoojinaysana waxay tahay arrinta ninka lagu haysto waa arrin sirdoon, arrin amni la xiriirta oo ah shabaabnimo. aadayna marka loo fiiriyo xaaladda noocaas oo kale ah laga hadlaa adag tahay, sababtaa awgeed janaal tiim durdur way ka gaabsadeen. haddaba waxaa la filaya waxay tahay in ninkan ama lasoo bandhigay sidii si lamid ah fanaankii Abshir Gaarane hay'adda sirdoonku ay shaacisay ay soo bandhigto, amaba in arrintan si kale loo fiiriyo. aniga waxaan la hadlay dad kala duwan ayaan la hadlay, xaqiiqa war aanan la xaqiijinna midin la soo wadaagin. so marka waxay xaqiijinayaan ilaha aan la hadlay oo dhan waxay xaqiijinayaan ninka inuu xiran yahay official, inuu xiran yahay sidoo lugeel xabsi ku jiro. sidoo lugeel oo nin madadaaliye YouTuber kusoo caanbaxay inuu karbaasho dadka oo janaalkaas weyn ee durdur ka soo muuqan jiray, maanta waxaa ku xiran yahay ama ku jira gacanta hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya. halkaas ayaa su'aalo la xiriira tuhunkiisa lagu weydiinaya. haddaba muddooyinkii dambe ma ahan kaligiis, waxaa jiray baaritaano guud oo hay'adda sirdoonku waday
oo ay ku qabatay Abshir Gaarane macallin Ilka Case. Abshir Gaarane oo fanaan ahaa, Ilka Case oo macallin ahaa, gudoomiye rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo asagana lagu eedeeyay arintaas walow warar kala duwan ay sheegeen la sii daayay. Eeduhu way badnaayeen. Hadda waxay maraysaa YouTuber sidoo Lugeel in asaguna uu kamid noqday dad tuhunka uu soo galay oo sidaas hadda ugu jiro xabsiga. dabcan tan iyo qabashadii haddaba Ilka Case waxa soo baxay ilaha ama sourciga hay'adda sirdoonku ay raadinayso oo maadaama la xog wareystay Ilka Case oo macallin ahaa waliba lagu tilmaamay maskaxda shabaab ee ku jirtay gobolka Banaadir tiimka ka howlgalay hal abuurahooda ugu weynaa wax badan ayuu runtii bidhaamay sida hay'adaha sirdoonka iyo xubno ka tirsan ay noo xaqiijiyeen. waxaa marka xaqiijintaasna kamid ah in dhowr jiho ay ku jiraan ragaas macallin ha noqoto fanaan ha noqdo YouTuber iyo wixii la mid ah adiga qayb sectionska bulshooyinka ay ka kooban yihiin qaybaha bulshooyinka oo dhanba inay ku jiraan ayaa runtii la isku raacay. ninkanna waxaa la sheegayaa inuu xiriir dhow la lahaa wada shaqayn la lahaa ama ay macaamil ahaayeen Ilka Casena qayb ka ahaayeen fanaankana sidoo kale. marka hadda waxay maraysaa in sidoo meeshaas uu ku jiro dhawaan waxaa la rajeynayaa marka sida looga bartay hay'ad sirdoonku in iyada muuqaal official la baahiso ama ay ku sheegayso faahfaahinta arintan la xiriirta ama ay uga aamusayso. haddii marka muuqaalkaas uu soo baxo dabcan waa ka update-kana idin siinayay sababtoo dadka update-kan u siinayna waxay tahay in la isweydiinayo team Durdur maxay ninkan uga buriyeen goobta ama ninka shaqada maxaa looga eriyay. so warkaana yimid shalay waa idin baahinay isqabsi ugu jiray teamka labada dhinac ka dhaxeeyay. hadda this is new update war cusub war hadda war soo dhacay haddaba barnaamijyada taxanaha ee hay'adda sirdoonku baryahan waday maxaa laga baran karaa barnaamijyadan dabagalka ah. waxaa sahlanaatay hadda marka la qabto qof looga shakiyay in hay'adda sirdoonku ay mariso nidaamkii waxbaaris ee sirdoonka ama siraha caalamiga ay hay'adaha sirdoonada caalamka ay u shaqeeyaan oo ah qofka in lagu sii ogaado qofka kale ee la sii shaqeynaya. xogta qofkan marka la helo qofka ku xigay huis yaa ku xigay yuu la shaqeynayay yaa adiga ka caawinayay xagee yaa ku xirneed connection-kaaga madaxdaada madax hoosaadka madax waaxeedka kan rayidka oo soo marka raadkii si furaya. hadda anaga ma ku eedeyn karno sidoo Lugeel waxaan hadda halkan si official uga sheegayaa in aniga ninkaas ku eedeynaynin ama aanan afkayga ku oranaynin waa shabaab. hase yeeshee sida warka uu yahay hadda aan helnay ayaa wuxuu sheegayaa in ninkan loo haysto war la xiriira ninkan inuu yahay ama uu soo galay tuhun ah al-shabaabnimo looga shakisan yahay sababtaas awgeed loo xiray. waxa hadda marka aan idin sheegay waxay tahay aniga warka ku saabsan xiritaanka Israakiish aan la hadlay oo iyaguna xaqiijinaya in ninkan uu loo haysto eed la xiriirta arintaas sababtoo qofka markuu xiran yahay waxaa la marsiinaa nidaamka baarista. qof walba la xiri karaa tuhuna gali kara qofka hay'adaha sirdoonka tuhuna gali kara adduunka meel walba ka dhacda. marka anaga media markaana waxaan adeegsanaynaa eedeysane sidoo Lugeel waxaa lagu haystaa falal la xiriira inuu yahay xubin ka tirsan ururka al-shabaab. muddo la raadinayo sida noo sheegay sarkaalka muddo lagu raad jiray muddo la raadinayay marka la leeyahay waxa waaye in wajigi lagu raadinayay uusan wajigaas lahayn waji kale ku joogo magaalada sida noo sheegay ninka. markii dambana la helay raadadka dadkii ka horeeyay asaga ee la qabtay la soo tixraacayna in ninka la raadinayay iyo ninka magaalada dhex joogaba uu hal qof yahay. sidaas aaweedna marka ninkan loo soo qabtay su'aal weydiinuhu markay ka dhamaystaan hay'adda sirdoonka ayaa si official u shaacin doonta. official markaan leenahay way soo bandhigi doontaa si lamida sida hadda fanaanka ay u soo shaaciyeen oo asaga oo hadlaya muuqaalkiisa la soo duubay. marka saaxiibayaal intaas ayaan idin la socodsiin rabnay. haddii janaalka aad ku cusub tahay xog wareysi haddii aad ku cusub tahay waa janaalkaaga xaqiiqa waa janaalkaagi. haddii aad subscribe saarta ama aad la socoto waxay la dhigan tahay ado isla socda waa meel adiga leedahay waa meel iska dhex arki karto ma fahamtay. haddii aad ka tagtana waa meel lagaa jecel yahay mar walba. marka soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.